waxaad maqlaysaa hebel waa xidhan yahay waxaana loo haystaa 5 qof ama 6 qof oo meeyda iyo 10 qof oo dhaawac waxa laga yaabaa hal qof oo kaliya in laga xaqo 500 halaad ama 800 halaad sida dhacdayba oo ay tahay shil baabuur arintaasi miyay kula tahay in tolku maanta qofkii hadii uu tusaalahan shilka inay wax ka bixinayaan wixii dhimashaaba la wada bixiyaa aniga inay 200 ka tahaadi saaray markaan ehelkaygii magta wada bixin jiray aan la hadlay aan ku yiri war inoo qaybiyo 250 ka waxa leegu jawaabay wixii dhintay ayna shuraka kuna wixii dhaawaca la tabaalaad waxaan dhawaan maqlay markii shilalkii bateen in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu noqday madaxweyne ugu horeeyay ku dhiirada inuu wax ka qabto haddana taas oo ay tahay marka uu shilco dhibaatadu inta kaliya kuma ekaato balila arag siyaabaha kala duwan ay dhibaatada shilalku u saameeyaan qayb kasta bulshada kamid shilalka gaadiidku sida u saameeyeen uqaasha iyo dadka idinku ka mas'uultihiin dhibaatada anaga uqaal ahaan naga haysata magaha anaga oo dadka tabaruc ugu shaqeeyna oo aan wax dhaqaalaha ku qaadanin shaqada aanu hayno oo laga yaabo inaan laba bilood ama bilbil ku maqnaano hawsha waxa dhacda mararka qaar inaanu tagno dad aan waxba haysan oo abaartii xooli ka marisay ayaa lagu oranayaa ma ka soo qaad xaguu ka keenaya meel alaala meel ku keenay waxa kala dhacda dhibaatooyinka jira aan la kulano in dadka qaar magtaba bixin waayaan oo xidhno hadii kala anaga la xidhay hadaan anaga xidhin maalin walba 10 qof baan xidhnaa 5 baan xidhnaa 2 baan xidhnaa anagoo ma ka doonin imika jeelka burco iyo kuwa berbera iyo kuwa caynaba iyo kuwa maxay tahay saraag iyo kuwa tagto boqolkiiba dadka wax loo shilbi xulay anaga iyo reerkii u baysaysanaa taan uqaashinahay dadkiina waa isku nacnay markay magti soo noqotay farabadatay tagi weeyday oo waxa weeyaan reeraha qaar baa imika sidaanu ka war hayno dhowr iyo 10 magood lagu leeyay haddaad weydiisana boqolkiiba 85 waa shil baabuur haddaba si aynu wax ugu ogaano waxyaabaha sababaya badi shilalka gaadiidka khasaaraha badan ka dhalanayo marka hore aan eegno siyaabaha kala duwan ee shilalkani ku yimaadaan halkani waa mid ka mid ah geerashada ugu waaweyn magaalada Burco ee gaadiidka shilalka gala dib loogu hagaajiyo Mukhtaar oo ah makaani ahna gudoomiyaha geerashkan ayaa sharxaya inta badan waxa shilka sababa waa taayirada inta badan dadkeen wax ku socdaan taayirada aan applicable ku ahayn safarka taayirada yar la door la siinayo gaariga marka ku socdo iskama xijinayaan dadka ugu horeeyo ku qarxaya shilka marka la geysto inta badan boqolkiiba 8 dad qeyr mas'uul galay in yar oo aan garanay ba gaar iska dhaqaajinaya uu la dhacaya haduu doono meheradu jiiraya waxa soo dhan waxa weeyaan si sahlan bay u dhacaan qofkan shilka galaya ee dhalinyarada uu kaga saameyn badan yahay kuwi kale wuxuu ka hadhaya riyooyinkiisii waxa laga yaabaa labadoodiba in halka ay noloshii ma taqaanay ay kaga wada dhacaan oo qofkii shilka geystayna uu jeel ku dambeeyo oo kii shilka loo geystayna ay noloshiisa kaga dhaco curiyaamo haddaba si aynu mushkiladan xal ugu helno wax lagama maarmaana adigu inaad xalka qayb ka noqoto haddaba sidaad xalka qayb uga noqonay waxyaalaha aynu dawladnimada u samaysanay waa waxyaalaha culayska inaga dul qaadaya adigoo darawala marka aad shil gasho ee intaas oo magood lagu saaro waxaad ka bixi kartaa maaha reerkii aad ka dhalatay dhibaato u geysanaysaa u soo hooynaysaa sidaa darteed waxaan halkan ku boorinayaa dadweynaha in baabuurteena aynu gelino kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba caymisku waa waxyaabaha daruuriyaadka ah bayna oran karaa maanta looga baahi badan maadaama baabuurta si farabateen shalka si farabadanayaan markii shilalkii bateen xilligii ugu haboonayd ee ay arinta in wax laga qabto ay mudnayd ayay soo gaadhay madaxweyne arinta waa bilowday waxaan leenahay ku dhiiro waayo sababtoo ah dhibaato weyn baa dadka haysata xaqi qabaa'ilka haysata uqaasha haysata nabadgelyada haysata waxaan maqlay in xeerkii hor yaalo baarlamaanku hawsha ku dhiirado ansixiyo dadkaanu ka mas'uulka nahay ee reeraha ay magta bixiyana sidaas haddana caymisku culaysku inaga fududeynaya hal la galo caymiska hal laga qayb qaato hana la taageero